waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel walba nagala socotaan halkani waa wacaal miidiya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin ahaa oo subaxnimadii hore ee saakay lagu qaaday bar kontarool oo ciidamada waaxda canshuurta ay ku lahaayeen isgoyska ex kontarool afgooye ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira inkastoo aanan la ogeyn tirada rasmiga ah ee waxyeelada isu gaartay haddana goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa wakhtigaasi ahayd mid aad u mashquulsan oo ay ku sugnaayeen gaadiidka dadweynaha oo qaarkood u yimaaday in ay ka qaataan warqadaha shaqo ee ay jidka ku marayaan gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa ku howlan dabaabulidda dhaawaca waxa uuna qaraxa ahaa mid xoogan oo gaaray meelo ka fogfog goobta uu qaraxa ka dhacay dhibaatadii ugu badneed ayaa la sheegay inay soo gaartay gaadiidka mootobajaajka oo subax walba halkaa u taga in ay ka goostaan warqadaha sharciga oo wadamarista ah sidoo kalena waxa uu dab qabsaday kaalin shidaal oo ka agdhoweyd goobta uu qaraxa ka dhacay khasaaraha kuma eka goobta uu qaraxa ka dhacay keliya ee xitaa waxa uu burburiyey guryo dad rayid ah ay lahaayeen oo ka agdhowaa goobta wixii wararkan ka soo kordha daawadayaal dib ayaan inkala socodsiin doonaa aanu ku bilowna waxaa goordhow qarax xoogani uu ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho waxaana markaasi faahfaahinno kala duwan ay ka soo baxayaan qaraxaasi meel sidaas aan uga fogeyn waxaa ku sugan wariye Saciid Yuusuf Cali oo markaasi isagu dhowr tallaabo uu u jira goobta qaraxa uu ka dhacay Saciid soo dhaw faahfaahin naga sii sidee bay wax u dhaceen Ahmed waa maasantahay qiiska ex control afgooye ayaa waxa uu abaara 7 daqiiqo hor ka dhacay qarax xooggan kaas oo dadkiisa dhawqis laga maqlay guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir khasaare aad u xooggan ayaa ka dhashay qaraxaasi inkastoo aan la xaqiijin karin qaraxa markuu dhacay kadib ayaa waxa ay shacabka halkaasi kuwii ka fogaa meesha uu qaraxa ka dhacay dib waxay bilaabeen in sabaxan iyo baroor ay isku daraan inkastoo aan la xaqiijin karin ani ahaan inta aan liiga ku arkay afar qof oo dhaawac ayaan arkay oo aan xaqiijin karin qaarkood xataa iminka lala gaaray isbitaaladii loola cararay waayahay ilaa hadda waxaa gubanaya oo olol iyo isku daraya gawaari ka agdhow halkaasi iyadoo dadka ka agdhow goobta qaraxa ka dhacay oo aan la xiriiray ay sheegeen in qaraxa uu ahaa gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey oo goobta farxay mid ka mid ah dadka goobta ku sugan oo aan la hadla waxa uu sheegay in isiga ahaan oo qaraxaasi soo gaaray dhaawac fudud waxauna sheegay in dad badan meesha ay ku dhinteen waxyeello uu ka soo gaaray qaraxaasi oo aan la xaqiijin karin balse waxa uu sheegay in qaraxa uu aad u xoogan dhibaatana u geystay goobihii ka agdhawaa ee ganacsiga inkastoo uusan sheegin in markii qaraxa uu dhacay kadib halkaasi ay ku kala xaseen uusan xaqiijin karin khasaaraha dhabta ee halkaasi ka inkastoo dadka ka agdhaweysayeen aad waya Saciid waxaad sharaxaad naga siisaa qarax wuxuu dhacay xilli dadku ay goobahooda ganacsiga iyo waxbarashadooda ay u soo socdeen marka sharaxaad dheeraad waxaad naga siisaa goobta qarax uu ka dhacay waa xagee ma ex control afgooye halka controlka ciidamada dawladda u yaala mise waa meel ka fog qiyaas intee la eg bay u jirtaa isgoyska Ahmed waa maasantahay ex control afgooye ayaa ka dhacay qaraxa meel hore qarax oo hadda ka hor ooga dhacay oo ku yaala isgoyska oo meel goomiste oo la dhow midkiisa ku yaala waxaana qaraxa ma uusan u dhoweyn degmoontiga ciidamada dawladda ee ku leeyihiin halkaasi inkastoo gaariga meesha uu ku qarxeed meel aad axmed badan oo sana laga raba gawaarida bakaaraha iyo suuqa xoolaha waa buteejo laga raraayeed dadkana aad ay ugu badan yihiin inkastoo aan la xaqiijin karin khasaaraha ujeedka qaraxa iyo halka loogu talagal aan la ogan balse gawaarida halkaasi ku sugnaan dadka raacayeen iyo goobihii ganacsiga oo imikadaasi albaabada loo fura ayaa dadkii ku sugnaa iyo dadkii halkaasi ku ganacsanaya kuwii kale oo ku dukaamaysanaan ay waxyeelada inta badan ay soo gaartay ayaa waxaad ku arkaysaa iyagoo la ilmeynayo qaar ka mid eheladooda ee walow ay ka qabaan in qaraxaasi waxyeelo ka soo gaaro waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saciid inuu ahaa gaari walxa qaraxa laga soo buuxiyey xilliga qaraxa u dhacayna waxaa goobta ka socotay
qaadista canshuurta gaadiidka isaga kala gooshta Muqdisho iyo Afgooye oo maalin waliba si joogto ay lacaga ugu qaadaan ciidan ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo halkaasi ku sugan. Qasaaraha warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sida muuqaalkan ka dheehan kartaan. Waxaa cirka isku shareertay uuro xoogan oo meesha ka dhalatay kadib markii gaadiid dhowr ah ay gubteen sida dad goobjoogayaal ah ay inoo warameen. sidoo kale waxaa goobta tagay ciidan ka tirsan kuwa ammaanka dowladda Soomaaliya waxay xireen wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ka agdhow isbitaalada badi la geeyo dadka dhaawacyada ee magaalada Muqdisho iyo xarunta Ex-Control Afgooye ilaa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sida goobjoogayaal ay inoo sheegeen. qaraxan ayaa noqonaya kii labaad oo sanadkan ka dhaco Ex-Control Afgooye maadaama wadadaasi lagu qaado canshuurta ugu badan gaadiidka isaga kala gooshta gobolada Banaadir iyo Shabeellaha Hoose. waxaa aad u badan cariiriga wadadaasi ka taagan oo xilli hore gaadiidkuba ay halkaasi loo qaado lacagaha canshuurta oo inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya alisay ama xilli horeba ay gaadiidka ka qaadaan lacagaha canshuurta ah halkaasina fayl ay ugu jireen sida dad goobjoogayaal ah ay inoogu warameen. sida saraakiisha dowladda Soomaaliya ma jiro war ka soo baxay hase yeeshee waxaa lagu wadaa in hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ay war ka soo saaraan sida taliska booliska oo badi ka hadla dhacdooyinka caynkan oo kala waxaana weerarkan mid lamid ah oo ka dhacay Ex-Control Afgooye horey isla sanadkan sheegtay Al-Shabaab. qasaaraha ilaa iyo iminka lama hubo inta uu gaarsiisan yahay balse waxaa jira dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxan oo dadka soo gaaray ay isugu jiraan qaar ka mid ah ciidankii goobta ku sugnaa iyo waliba dadkii watay gaadiidka lacagaha canshuurta laga qaaday. Ex-Control Afgooye ayaa aad saxmad u ah xilliyada hore ee subaxii maadaama gaadiidka dadka shaqooyinka u kala haya ama u dheelmanaya ay isaga kala gooshayaan ay raacaan ay isticmaalaan. sidoo kale Ex-Control Afgooye badi dadka degan duleedka Muqdishona ay subax horeba shaqooyinka halkaas ay ka soo aadaan. qof ka mid ah dadka wadadaasi ka agdhawaa ayaa inoo sheegay in qaraxa markii uu dhacayay goobta ay ku sugnaayeen gaadiid badan kuwaas oo muuqaalka idinkaga muuqda uurada baxaysa gaadiidkaasi oo gubanaya kadib markii dab uu isqabtay dhowr dhinac gaadiidkii halkaa ku sugnaa. waxaana goobta tegay gaadiidka dabdamiska si ay u baktiijaan ama ay u damiyaan gaadiidka ololaya. sidoo kale waxaa tegay gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaano ambulasta si ay u soo qaadaan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay gaar ahaan kuwa dhaawac soo gaaray si ay u geeyaan isbitaalada magaalada Muqdisho loogana daaweeyo dhaawacyada soo gaaray. howlwadeena ka tirsan gurmadka degdega waxay inoo sheegeen in hawshii weli ay socoto ilaa imikana dad kala duwan ay qaadeen inkastoo tiro rasmi ah aan laga haynin dadka la qaaday iyo waliba isbitaalada sida gaarka ah loo geeyay balse wararku waxay sheegayaan in isbitaalka Madiina oo badi la geeyo dadka dhaawacyada ah ay ku qulqulayaan ehlada dadka waxyeelada soo gaartay. waxaana magaalada Muqdisho gaar ahaan Ex-Control Afgooye saaka ka taagan xaalad ka dhalatay weerarka loo adeegsaday ismidaaminta waxaana goobta ku sugan qaar ka mid ah dadka raadinaya eheladooda ama ku tuhmaya. marka laga soo tago gaadiidka tirada badan ee goobta ku sugnaa iyo ciidanka dowladda canshuurta qaaday waxaa ka agdhow goobta goobo ganacsi oo ay leeyihiin shakhsiyaad. sidoo kale waxaa ka agdhow goob busteejo ah oo gaadiidka laga raro maadaama wadooyinka magaalada Muqdisho meelaha qaarkood ay yihiin kala wareeg ama dadka qaar sida u yaqaanaan